waxa ay muddo ahayd shaqaale balse maanta waxay u shaqo tegaysaa goob ganacsi oo iyadu leedahay. waa Shamso Cabdulaahi Baafe, milkiilaha xarunta Rumeys Online oo ah shirkad ka shaqeysa sameynta xayeysiimaha ganacsiga iyo suuqgeynta. Hal-abuurka ganacsigan muddaba waa uu ku taagnaa Shamso, laakiin waxaa fulintiisa soo dedejiyey markii laga soo eriyay goob ay shaqaale ka ahayd kadib markii ay hal maalin shaqada uga baaqatay in ay cisbitaal geyso hooyadeed oo xanuunsanayd. aqoon-yahano badan oo wax ka qoray shaqaalanimadu waxa ay ku tilmaameen inay tahay adoonsiga casriga cusub maadaama waqtiga ugu muhiimsan ee qofka shaqaalaha ah uu qaadanayo loo shaqeeyaha. inkasta oo shaqadu ay muhiim tahay qof kastana uusan furan karin goob ganacsi, haddana inta badan waxaa lagu taliyaa in qofka xilliga uu shaqeynayo uu ka fikiro fikrad kale oo ganacsi in markaasi mustaqbalka uu hirgeliyo. waana taas mid ay sameeyeen Shamis iyo Rumeys Online. horta dhinac waxaan dareemay waxay ahayd xilli habeena inta la isoo wacay ma filineen inay dhahayo shaqada fasaxi ka tahay. xilligaas adana ay ku sii jirtay in hooyo aan baxnaanahay caafimaadkeeda. dareenka habeenkaas aan dareemay waxay noqday mid habeeno badan aan dhafar soo ahaa. dhafarkaasna aan maxaa lahaa go'aan ku qaata ah in maalin dambeeto aanan CV inta qaado ama shaqo kale aan raadinin oo aan ka miro dhaliyo dadaalkayga iyo maxaa lahaa aragtida igu jirta. aragtidaas oo bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku noqdaan mid xorriyad ay ku wada dareemaan. qof dambe oo maxaa la dhahaa aniga ama ila shaqeynayo ama shaqaale ahna uusan niyad jab ama maxaa la dhahaa uusan ku abuurmin. anoo dhinacyo badan meeshan oo asaas ay ugu horeyso la talinta dhanka shaqaalaha markuu qofka iyo waxyaabo badan oo soo wajahay iyo maxaa la dhahaa in sara u qaado xirfadeedii ee marketingka. dhalinyaro badanna ay u noqoto meel ay isku wada yimaadaan iyo hal goob ay wada leeyihiin. xaqiiqatan marka qaar waxaa is dhahaa Shamso in shaqada xilligaas lagu cadaadiyo waxyaabo badan kaaga soo dhaxbaxay. ay ugu horeyso horta mid ugu horeyso ahay ducada waalidka. haddii maalinkaas aan dhihi lahaa shaqadii aan aada mu maleynaa inaan heerka maanta aan gaarsana aan soo gaari lahaa. mid labaad oo ah in aragtidii aniga igu weysay aan inta qor-aan dhaho waa mid aan ku nafisi doonto maantana heerkan ay soo istaagtay. xanuunka ugu badnaa ama walwalka ugu badnaa oo aniga isi saarahay waxay ahayd in waxyaabaha qaar oo qof la dhihi karo maanta shaqa looga buriyo ah inaan soo daahinin. in maalmaha aan shaqeynayo muddo 4 bil u dhaxaysa aan maalin ka maqnaanin goobta aan ka shaqeynayay ama saacad aan ka soo dib dhicin. Soomaaliya badi dhalinyaradu waa shaqo la'aan, balse Shamso iyo kooxdeeda oo gabdho u badan oo ka faa'iideysanaya horumarka tiknoolajiyadda casrigan ayaa muujiyay in dhalinyaradu ay shaqo abuuran karaan. shirkadda Rumeys Online Advertising waa shirkad horta ka shaqeyn doonta online marketingka. aragtidan aniga kaliya markii aan macnaha aniga aan maxaa la ku fikiray waxa jiray in saaxiibada aad igu dhow ama filligan ehelka oo aan la wadaagay. Shamis oo kamid ah gabdhaha ka howlgala warbaahinta in badanna ayada ka soo shaqeyso howlahan baa la imaaday. Rumeys Online waxa ay qaban doontaa hadduu alle idmo in ay ka shaqeyso horumarinta ganacsiga dhinaca social media, dhiirigelinta qof kasta oo ganacsi Soomaaliyeed haysta in loo maamulo qofka maxaa la dhahaa ama laga talageliyo habkii uu bulshada ugu soo bandhigi lahaa waxyaabo uu asagu hayo. waxa laga yaabaa ganacsato badan oo Soomaaliyeed inay ku wareersan yihiin in aysan la helin waxa ay ku fikirayeen oo ah in macaamiil badan ay helaan. macaamiishiina ayaguna ay u baahan yihiin baahiyihii ay soo gaareen meesha alaabta u baahan yihiin ay ka heli karaan. marka waxaan rajeynaynaa insha Allah in aan ganacsadaha riyadiisa iyo macaamilka riyadiisa in shayga uu rabo uu helo inay wada helaan una wada rumeyso shirkadda Rumeys Online. Shamso iyo saaxiibadeed waxay rajeynayaan in xaruntooda ay tusaale u noqoto in haweenku ay sameyn karaan isbedel iyagoo iskaashanaya sida ay leedahay Shamso Sheekh Cabdiraxmaan oo ah saaxiibka koowaad ee Shamso qaybna ka ahayd hirgelinta xaruntan ganacsi ee Rumeys Online. hadafkan leenahay waxay tahay horta xaruntan dumar baa hadda asaasay, fikradeeda dumar baa lahaa. waa riyo maxaan ku rahdaa gabdho Soomaaliyeed ay rumeeyeen
waxaan rajeynayaa insha Allah dad badan riyadooda inay maaragtay rumayn doonto gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed oo la yiraahdo maxaan ku raadayay caqabadaha kala kulmaan shaqooyinka aragtiyaha caqabadaha kala kulmaan inay wax hirgeliyaan caqabadaha kala kulmaan inay wada shaqeystaan caqabadaha kala kulmaan marna waxa soo dhanaa meesha ka saarno hadii Ilaahay idmo saasoo tahana maanta dunida qaabka wax loo xayeysin jiray ama qaabka qofka suuqa marketinga loo sameyn jiray waa isbedel shay oo maanta dunida hormartay sida wax looga xayeysiisto ama wax loo marketing gareeyo ayaan rajeynaynaa insha Allah qof damana Soomaaliyeena uusan iyo wada qof kasta oo ganacsi leh uu ka fakirin ama adeeg bulsho u gaarsiin lahaa sidee u gaarsiiyaa qaabka ugu habboon ugu macquulsan oo waliba qaabka ugu dambeeyo ee dunida maanta ay wax u market gareyso una xayeysato inaanu ka shaqeyno hadii kambanigeenana kambaniga ugu weyn dumar leeyihiin ee ka shaqeeya suuqgeynta uu noqdo hadii Ilaahay idmo waa uu sii jiri doonaa ganacsigan casriga ah oo ay hindiseen Shamsa iyo saaxiibadeed waase haddii ay u fakaraan si ka duwan markii ay qof u shaqeynayeen oo ay mushaari ahaayeen balse maanta khasaare iyo faa'iido waxa ay helayaan waa sida ay u dhaqaaqaan mustaqbalka dhowna waxa ay filayaan in suuqa samaynta xayeysiimaha iyo suuqgeynta ay ku yeeshaan saameyn muuqata Cabbaas Xuseen Muuse 5TV Muqdisho abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus